waxyaalahay qabaan bayna ka mid tahay nimanka la yidhaahdo raafidadu wujuubu taqiya taqiyadu inay waajib tahay taqiyadu waa maxay waa munaafiqiin marka ruux khilaafsan caqiidadaada aad la joogto run ha uga sheegin beenta u sheeg waxaad tidhahdaa ma qabo ma aaminsani hadduu xataa ku dhaariyo wallaha u mar nacdal baa cidda qabtaa way kuu bannaantay keliya ma aha sunnay tahay ma aha faral waajibay tahay oo haddii laga tago diin la'aan ay tahay ilaa an tattaquu minhum tuqaah ayay xaqdarre u deliishanayaan aayaddaasina waxay ku saabsanayd gaaladu markay ka xoog roonaato oo ruuxii ay dirqinayso inuu afka baarkiisa uga odhan karo markaa waxa ay ku dirqinayaan isagayna niyad ka ahayd gaaladaynay ku saabsanayd ikraah baynay ku saabsantahay dirqi oo ruuxii haddaan la ikraahin oo la dirqiyin wixii xumaan tahay inuu ku hadla uma bannaana culamada qaarkood oo ku fasiraya mudaaraad iyo tawriye iyo wax la mida in looga jeedo yacni waa jiraan laakiin taas waa baab kale taqiyada sharcigu wakhtiyada qaarkood uu rukhseeyey iyo taqiyada ay markaa shiicada raafidada qabaan waa kala duwanta shiicada raafidadu taqyaday qabaan shardiba ma aha qofka in laga awood roon yahay lana dirqiyo shardina ma aha ciddaasi inay tahay cid gaalo ah bas caqiidadaada hadduu khilaafsan yahay waxaad doontaad been u sheegi kartaa dembina kuma qabtid bale haddaad ka tagto ayaad markaa noqonaysaa bay yidhahaan gaal waxay ka soo naqliyeen imaamiyaalkoodii inay yidhaahdeen attaqiyatu diinii wa diinu aabaa'i man laa taqiyata lahu falaa diina lah taqiyadu yadaa ii diin ah diintii aabbayaashayna ah kaan taqiyo lahayni diin ma leh yacani ka mukhaalifka ruuxa khilaafsan ama ahlu sunnaha ah ruuxa aan beenta u sheegin oo caqiidada ka been sheegin oo odhan markaa sidaa ma qabno ma aaminsani diinba ma leh waxay yidhahdeen taariku taqiyati kaafirun ka taqiyada ka taga waa gaal iyo taariku taqiyati ka taariki asalaa ka taqiyada ka taga waa mid salaadda ka tago kaluu la mid yahay taqiyada shareecadu ay wakhtiyada qaarkood bannaysay waa ruksoo casiimada ka fiican oo ruuxu inuu ku sabro diintii oo xaqa uu ku sugnaado ku adkaysto oo lagu dilaa way ka fadli badan tahay in waxa lagu dirqiyey oo afka uga yidhahdo iyaga laakiin agtooda saa maaha iyadaan laba dirqiyin ayay ku leeyihiin qofkaasi hadduu ku khilaafsan yahay si caqiidadii loo asturo oo wixii la qabay loo qariyo waa in markaa la yidhahdaa ma qabno waa in la inkiraayoo la dafiraa waa in laga been sheegaa saasay leeyihin marka waa diin munaafaqnimo iyo been ku dhisan waa mabniya cala alkadib waannifaaq munaafaqnimo iyo been bay ku dhisan tahay beentana shareecada waa lagu dhaleeceeyey allah wuxuu yidhi inamaa yaftari alkadiba aladiina laa yu'minuuna biaayaati illahi wa ulaa'ika hum alkaadibuun beenta waxa been abuurta uun kuwaan aayaadka ilahay rumaynayn allah baa yidhi runtaa la amray yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allaha wa kunuu maca asaadiqiin wuxuu ammaanay ilahay saadiqiinta waalsaadiqiina waalsaadiqaat wuxuu amrayey nebigu sala allahu alayh wasalam runtuu amrayey waya'muruna biasalaati wasidqi waalcafaafi waasila wuxuuna amraa salaadda iyo runta ayuuna amraa iyagu beentiyo munaafaqnimaday amrayaan wuxuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam waina alkadiba yahdi ila alfujuur waina alfujuura yahdi ila annaar waina arajula layakdibu xataa yuktaba cinda allahi kadaaba beentu waxay ruuxa ku hanuuninaysaa faasiqnimada faasiqnimaduna waxay ku hanuuninaysaa naarta ninku waa been sheegaya ilaa ilaahay agtiisa looga qoro inuu kadaab yaho beenawaas yahay xadiiska bukhaariga iyo muslimka marka waa diinta raafidadu munaafaqnimo iyo been bay ku dhisan tahay lamaba aamini karo ruuxii hadduu markaysagaa yani ka diin yeelanaayo inaanu runba sheegin oo hadalkiisa daacadda ah iyo hadalkiisa beenta ah oo taqiyadii ah lama kala garanayo